بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديال كسو دوادا مركله iyo barnaamijkeeni wargeysyada oo toddobaad kale hadahayo kala ka daawataan telefishinka ETN. waxaan daawadaa anagoo barnaamijkeena gudageli doona funsiyo aan ka codsado toddobaadkan wargeyska ugu horeeya barnaamijkeena aanu daafurka kaga dhigayno inay inoo soo qabato. waxaan daawadayaal wargeyska ugu horeeya ee barnaamijkeena wuxuu noqonayaa wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi. waa wargeys maalinle ah waxaana wax ka qoray howlgallada ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya ay ka fulinayaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi iyo guud ahaan wadankaba. waxaana faahfaahinaya Danjire. booliska Kenya ayaa xirxiray in ka badan 134 qof oo muhaajiriin ah oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Nairobi iyo Nakuru habeenkii Talaadada ahayd, iyadoo uu maalmahanba socday olole lagu xirxirayo dadka aan u dhalan dalkani Kenya, iyadoo tiro kale oo la soo bandhigay xabsiyada ku jirtana ay gaarayso in ka badan 800 ruux. xaafada Komarag ee ka tirsan magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay dad boqolaal kor u dhaafaya oo dhalashooyin kala duwan haysta, badidooduse waxay u badnaayeen dad Soomaali ah oo Soomaaliya ka yimid. sidoo kalena dad laga shakisan yahay ama laga shakiyay ayaa waxa lagu qabtay hoteelo ku yaala wadada Tomboya Street ee bartamaha caasimadda Nairobi, kuwaas oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada booliska qaybtooda la dagaalanka argagixisada. booliska ayaa sheegay dadkaas laga shakisan yahay in lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin ururka shabaabka Soomaaliya ka dagaalama, iyagoo qayb ka mid ahna ay horay saraakiil uga han jireen ururka al-shabaab. waa sida wargeysku qoray. magaalada Nakuru howlgalka waxaa lagu soo qabqabtay in ka badan 34 qof, kuwaas oo aan haysan wax dukumeenti ah oo u ogolaanaya inay dalka sii joogaan. madaxa howlgallada ee gobolka Rift Valley ayaa sheegay inuu baaritaanku sii socon doono uuna u gudbi doono goobo hor leh oo haatan aan weli uusan gaarin baaritaankaas uuna ku fidi doono dhammaanba Kenya. madaxa booliska Nakuru Johnson Ipara ayaa sheegay in howlgalkan ujeedadiisu aanay ahayn in qoomiyad gaar ah lagu bartilmaameedsanayo, balse waxa ay tahay in laga saaro dadka aan sharciga ku joogin dalkani Kenya. wargeyska oo si dhex jibaaxay qorbadiisa ayaa yiri sidoo kale madaxa booliska Garissa Paul Mukoma ayaa sheegay in askartiisu ay xabsiga dhigeen ilaa 134 qof Soomaali ah oo aan Kenyan ahayn, sidoo kalena ay bishii la soo dhaafay xabsiyada Garissa u taxaabeen ilaa 600 qof. dhammaan dadkaas la qabqabtay ayaa loo qaaday xerada Dadaab ee qaxootiga. warar kalena waxay sheegayaan in 3 Soomaali ah oo ka timid magaalada Nairobi una socday Soomaaliya lagu qabtay isla Garissa, wuxuuna Mukoma sheegay in ay dadkaasi ahaayeen kuwa ka soo cararay raafka ka socda Nairobi si ay uga nabad galaan. wargeyska ayaa gabagabadii waxa uu yiri war dawladda ka soo baxay ayaa sheegay in amarkan lagu bixiyay in dadkan la bartilmaameedsado uu socon doono ilaa waqti aan cayinayn, goobaha uu ka socdana uu ka sii socon doono. sidoo kale madaxa booliska Kenya Matthew Itere ayaa isna cadeeyay in howlgalku socon doono dadka la bartilmaameedsanayana sheegay wadamada ay u dhasheen, waxaana ka mid ah sida Cameroon, Central Africa, Guinea, Mozambique, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Soomaaliya. dadka la xirxiray ayaa dhammaan qoomiyadahaas ka tirsan. George Saitotina waa wasiirka arrimaha gudaha Kenya, waxa uu sheegay in uu yahay howlgalkani sidoo ku bilowday ilaa laga waayo hal qof oo sharci darro ku jooga Kenyana uu sii socon doono. kaasina wuxuu ahaa wargeyska Standard oo wax ka qoray howlgallada ciidamada ammaanka ee Kenya ay ka wadeen gudaha wadankani Kenya. wargeyska xigay toddobaadkan aan doonayno inaan ku soo qaadano barnaamijkan wargeysyada waa wargeyska lagu magacaabo The Guardian oo ka soo baxay dalkaasi Britain. wargeyska ayaa waxa uu wax ka qoray isu soo bixi ka dhacay Jamia Mosque ee magaalada Nairobi oo khasaaraha sababay. wargeyska ayaa qoraalkiisa waxa uu ku bilaabayaa ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay kadib markii askarta booliska ee Kenya ay rasaas ooda kaga qaadeen boqolaal dhalinyaro ah oo mudaharaad ka sameynayay barxadda hore ee masaajidka Kenya ugu weyn ee Jamia Mosque maalintii Jimcaha ahayd oo ku beegneed 15 bishan, iyadoo ay sababtuna ahayd markii mas'uuliyiinta socdaalka Kenya ay xireen wadaad daaci ah oo u dhashay asal ahaan dalkaasi Jamaica
oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay qaraxyadii lala eegtay tareemada dhulka hoostiisa mare ee dalkaasi Ingiriiska sanadii 2005 saraakiil u warantay The Guardian balse aan magacooda ogolaan in saxaafadda laga shaaciyo ayaa sheegay in 10 qof in ka badan oo dhalinyaro u badan oo ay rasaasi ku taalo isla markaana boolisku ay rasaasta ku dhufteen lagu daweynayo cisbitaalka weyn ee dawladda wariye u waramay wakaaladda wararka ee AB ayaa sheegay inuu arkay wiil dhalinyaro ah oo 25 jir ah oo xabad ay ku taalo iyo ilaa 3 qof oo kale oo dhalinyaro ah oo lagu daweynayo rug caafimaad u dhow masaajidka Jaamica Mosque ee bartamaha magaalada Nairobi salaadii Jimcaha kadib booliska u tababaran ka hortaga mudaharaadka ayaa la soo dhoobay wadooyinka ka horeeya masaajidka waxayna durbadiiba ciidamadu bilaabeen in ay dadka ku tuuraan sunta dadka ka ilmeysiisa iyo booyadaha biyaha kulul sayriya si loo kala cayriyo mudaharadayaasha laakiin durbadiiba waxaa bilowday in dhagaxaan ay tuuraan muslimiintu oo ay ujeedadoodu ahayd markii hore inay dhagxiyaan oo kaliya sarta socdaalka ee wadanka laga xukumay Yanya House halkaas oo ka soo baxay go'aankii wadaadka daaciga ah looga masaafurinayay Kenya wax yar kadib waxaa bilowday dad careysan oo iyaguna dhagaxaan ku tuurayay dadkii isu soo baxa ka qayb qaadanayay kuwaas oo ilaa hadda aan la garanaynin sababta keentay inay ku lug yeeshaan wixii meeshaasi ka dhacay shir jaraa'id oo uu ku qabtay afhayeenka dawladda Kenya Alfred Mutua meel aan ka fogeyn halka rabshaduhu ka dhaceen ayuu ku sheegay go'aanka dawladda Kenya ay ka qaadatay wadaadka wuxuuna hadalkiisa ku sheegay in dawladda Kenya ay amaankeeda si ay u sugto u xirtay wadaadkan una xiran yahay waayo buu yiri waa nin xaq jira isla markaana dhiirigeliya dadka sameeya qaraxyada magaalada xeebta ee Mombasa ayaa isla maalintaas waxa ka dhacay mudaharaad ka mid ah oo lagu taageerayo midka ka socday Jaamica Mosque ee magaalada Nairobi dawladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay in wadaadkani ka dambeeyay qaraxyadii London ee ku nafwaayeen in ka badan 52 ruux waa sida ay jariiradu qortay daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii wargeysyada iminkana waxaan idin soo qabanayaa wargeyska The Daily Nation ka soo baxa magaalada Nairobi waxa uu wax ka qoray wadaad kale oo isaguna loo xiray inuu ka dambeeyay rabshadihii ka dhacay Jaamica Mosque wadaadkan oo isagu u dhashay dalkani Kenya waxa inoo faahfaahinaya guuleed Mr. Amin Kimathi oo ah madaxa guddiga u qaabilsan muslimiinta Kenya dhanka xuquuqda aadanaha ayaa isniintii lagu xiray maxkamadda sare ee Kenya mar uu doonayay inuu ka soo saaro maxkamadda dhalinyaro 7 ah oo xirnaa rabshadihii ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay Nairobi Jimcihii 15 January ee sanadkan aynu ku jirno maxkamadda ayaa booliska amar ku siisay in la xiro Mr. Kimathi markii uu soo galay maxkamadda isagoo lagu eedeeyay in ay taageerayaashiisu dagaal kala hortageen askarta markii uu mudaharaad ku socday waxa uu markaas maxkamadda u joogay in uu dhageysto kiiska dhalinyaro lagu soo eedeeyay una xirnaa aflagaado askar iyo dhaawac ay u geysteen hanti uu dad si gaar ah u lahaa waxaana amar lagu bixiyay in la xiro wadaadka markii amarku soo baxayba wadaadka iyo dhalintii ayaa dibadda u soo baxay iyagoo isku dayay inay ka baxaan maxkamadda waxaase dibadda ku sugayay ciidan aad u tiro badan oo u diyaar ahaa in ay qabtaan waxayna durbadiiba ku soo yaaceen wadaadka iyo dhalinyaradii waxayna ku cadaadiyeen biraha banaanka maxkamadda ah wayna jeebeeyeen waxayna u dhaadhiciyeen isaga oo xiran iyagoo saaraya gaari qafilan oo gawaarida gaashaaman galbinayeen ilaa iyo xabsiga dhexe laga geeyay waxaana markaas daba ordayay garyaqaankii u doodayay in la sii daayo dhalinyarada balse nasiib darro wadaadkii laftiisii uu u doorayay inuu u doodo ayaa la xiray wargeyska oo hadalkiisa soo gaabinaya ayaa yidhi dhalinyarada xirnaa oo ay ku jireen arday kuna eedaysnaa aflagaado saraakiil boliis ah iyo rabshado gacan ka hadal ah markii uu mudaharaadkii Jaamica Mosque ka dhacay uu socday ayaa waxaa lagu soo daayay lacag dhan 100,000 oo Kenya shilin ah oo horumaris ah miiskana la saarayay lacagtaas iyo 100,000 oo kale oo ganax ah Mr. Kimathi ayaa ah gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee ururka muslimiinta Kenya waxaana lagu eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa mudaharaadkii rabshadaha dhaliyay ee Jimcihii ka dhacay Jaamica Mosque kaasoo dad ay ku dhinteen iyadoo ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysay mudaharaadkaasna ay ahayd in la sii daayo wadaadka Jamaicanka ah kaasoo ku xirnaa dalkani Kenya oo laguna qabtay sanadkii cusba dabadeedna Gambia loo masaafuriyay laakiinse laga soo celiyay Kenya kadib markii Nigeria diiday in wali halka nagala socotaan daawadayaal waa telefishinka ETN Nairobi